السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنت waxaan u wanaagsan bay uga joogtaan daawada ku soo dhawaada channelka Ahmed Hob. waxaan rabaa maanta insha Allah inaan sharxo topic yar oo ku saabsan sidaad ku ogaan lahayd passwordka saaxiibkaaga uu leeyahay ama internetada uu isticmaalay passwordkiisa. Marka farsamada waxay ku soo gelin doontaa adigoo saaxiibka aad weydiin passwordkiisa inaad si fudud ku ogaato. Marka waa commands ama farsamooyin aad u yar laakiin wax badan ku soo gelin doona. Marka waxaan soo dhaxgalnay computerkeena dhexdiisa. Marka computerka soo qaado farsamadii aan rabnay marka in aan ogaano saaxiibkeeda internetyada uu isticmaalay passwordadooda. haddaan rabna in aan ogaano marka sidaan ayaad ku ogaan doontaa. computerka dhexdiisa marka dhex taagan tahay shaashadan waxaad hoostan ama qaybtan hoose ayaad klik ku siinaysaa kadibna waxaad ku qoraysaa cmd. okay waa command promptigi kadibna wuu ku soo bixi doonaa kadibna waxaad leedahay klik ku sii. marka cmd gu aad klik siisid uu ku soo baxo halkan ayaad waxaad ku qori doontaa commands aad u fudud taasoo kuu suurtagelin doona in aad ogaatid maxaa loo yaqaanaa si passwordada saaxiibkaaga internetada uu isticmaalay. okay marka waxaad samayn doontaa waxaad qoraysaa net sh wlan show kadibna waxaa leedahay profiles kadibna enter. marka waxaa ujeedaa in uu iisoo bandhigay xog taasoo ay yihiin marka internetada aan isticmaalay. qaybtan haddaa fiirsid waa magacyo internet waa androidkani iyo xasan yuusuf iyo faaduma iyo xirwa iyo buu intaanoo dhan aad ujeedid waa magacyo internet. marka haddii aad doonaysid magacyadani in ku qoran mid kamid ah passwordadooda inaad ogaatid si fudud ayaad ku ogaan kartaa. marka intii haddaa aan qornay commandigi haddaa aan qornay wax yar ku dareena. okay tusaale waxaan doonaynaa inaan ogaano kan maxaa la internetka ugu sareeya android apa3fa ay ku qoran tahay maxaa loo yaqaanaa si inaan ogaano passwordkiisa. okay waxaa samayn doontaa waxaa leedahay net sh wlan show kadib waxaa leedahay profile hadday waxaan ahayn profiles laakiin waxaa leedahay kadib profile kadibna magaca internetka aan doonayno oo listigii uu noo soo bandhigay ayaa halkan ku sheegaynaa waa magacaas android apa3fa kadibna waxaa leedahay enter. sidoo kale hadana wuxuu isoo bandhigay xoog kala duwan oo ku saabsan internetkan annaga hadda aan raadinayno oo androidka ah. marka boqolaal wuxuu ku soo bandhigay maxaa la information kala duwan. marka xogta kaliya hadda annaga aan u baahanahay waxay noqon doontaa qaybtan ay ku qoran tahay security key. hal security keyga haddaa fiirsid wuxuu ku leeyahay waa percent taasoo micnaheeda uu yahay in securityga passwordkiisa ama internetkan passwordkiisa uu ku kaydsan yahay computerkana uusan saaxiibkaaga uusan daladin ama qofka computerka iskale uusan daladin. marka si aad u ogaatid maxaa loo yaqaanaa si passwordkaasi waxaa samayn doontaa isla intii haddaa aan soo qornay aan waxaa leenahay net sh kadibna wlan kadibna show kadibna wixii haddaa aan leenahay profile. okay profile kadibna waxaa leenahay profile markaan sheegno magaca internetkan sheegayna kadib markaan sheegno waxaan qoraynaa keyga kadibna waxaa leenahay wuxuu la egyahay clear equal kadib waxaa leedahay clear. marka intaas aad qortid okay kor aan u bixiye intaas markaa qortid okay net wlan show profiles android internetka waa internetka magaciisa kadibna waxaa leedahay key wuxuu la egyahay clear. okay intaas markaa qortid kadib waxaa leedahay enter. intaan markaa qortay kadibna enter aad dhahday waxaa ku soo baxay information marka ku siinaya passwordkii internetkii haddaa magaciisa aad raadinaysay. marka waxaa ujeedaa haddaa security keygaasi wuxuu ahaa present
waa ujeeda inuu ku jiray meeshaan. hadda marka waxaa lagu dhahay keygii annaga aan raadinaynay xogta ku kaydsanaa, ama si kale haddaan u dhaho baasweerkii waa kana, waa intan, waa 1111122. baasweerku waa kaas. marka hadda waxaa aada u fudud internetkaasi haddaa aragto in baasweerkan aada u isticmaali karto. micna tan waxay ka dhigan tahay hadda baasweerkaasi internetkaasi baasweerkiisa in aad heshay. okay, markale aan ku laabano annagoo aan raadinayno internet kale, maxaa lagu magacaasay baasweerkiisa. okay, aan raadino net sh kadibna wlan. intii hadda aan soo sheegna kaliyan ku celin rabo wlan. kadibna waxaan dhihi jirnay show, kadibna waxaan dhihi jirnay profileska noo kaysan inoo soo bandhig, kadibna enter. hadda wuxuu noo soo bandhigay profiledii annaga aan u baahnay. marka kadibna waxaa leenahay mid ka mid ah internetkaasi saan u helna waxaa leenahay net sh wlan hoos u baxkan wlan show profile, kadibna internetkan kale xasan yuusuf ku qoran noo soo qaad, koobi garay, halkan ku baas garay, kadibna waxaa leedahay enter. sidoo kale waxaan u jeednaa security keygii hadda inuu internetkan uu yaalay meeshaan. marka waxaa leenahay haddana si aan u ogaano baasweerka internetkaasi, waxaa leenahay net sh show wlan profile kadib waxaa leenahay internetka magaciisa, kadibna key, kadibna waxaa leenahay clear. keyga wuxuu la egyahay clear. marka wuxuu noo soo bandhigay maxaa lagu magacaasay xogtii ku kaydsaneed internetkaasi. sidoo kale wuxuu noo soo bandhigay security internetkaas ku xirnaa ama ku dhignaa, waa intaan haawo iyo lambarkan raacsan. marka waxaan rajeynayaa marka in intaan aa fahantay. sidoo kale u isticmaal casharkani xogtaa ka faa'iiday qaab wanaagsan. okay, dad kale baasweerkooda inaad ku xadid ama aad ku dhibtid ha ku sameyn. marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iiday. marka waxaan rajeynayaa insha allah in aad ku qaanacday farsamadaasi. marka waxaan rajeynayaa inaad u isticmaali doonto si wanaagsan, aysan ahayn qof aad ku dhibtid insha allah. sidoo kale iloobin in youtube channelkan aad ku soo biirtid. sidoo kale iloobin in asxaabtaada aad la wadaagtid muuqaalkaaga hadduu ku cajibiyo. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping light.